كوهيشة ماكرد الدفاعاga هالسيو قلبيمك نفتكوه راجوغا إذا ناديغا كوهيشة إن شاء الله تعالى برنامج كأني وفرنا أنا واحد من هايسون ويال هذا الكلام ويسك قابي هاي واحد يبي وفدي مدحدي بوتلان ومدحوينه لبعض وقابله يو وسير هذه مدحدي حلدبانه واحد ولا هايسون وهذا والله يقدر بيني هايسون ويت هذا رقم قابل سن إن شاء الله هو حينكون فرنا أيضا قرارا أو كمان وعرا ويانا يا شيخ إبراهيم محمد بن ويانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. وحاول خيارتنا دمان والسلام يا وعدنا انتاسا نوفرا إن شاء الله تعالى أمانة يجود الشدة إذا أيضا كهالليسو يا أيضا دنبه الرعية إذا لقلاها الله يضيعتان كوده دتكوا وذفهنسيهين بعد بني السلام يا دمانتين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد المركب وهو الرئيس وحنو مهد علينا إن الله سماه إحسان كبدن سورة قليل إنه سجون ما إنه حفلة قروح ذا بدن إنه كسر دوين إنه مدحنا شرفت يقيمها مدن نقص بوغدي أو ناقص دي إن يرهدان جالية سويدن يجو ميلا بدن أو دنيا كم إذا سفر كمريي إن حشان ووقت جودا إن صوصيان وإنه قرتان إنه يمادان ونلقي بسدان دلكي يددكي أي كي يمادين نون الرهبان رسالة أي تهاي إنه كده جيسانه إن عندنا لسه دويسان waxaan aad idinkaga codsanayaa anigoo taa ka duulaya hal mar inaad sacab yar dhaciga siisaan soo dhawaada mudanayaal idinkoo mahadsan ku soo dhawaada Sweden magaalada taniyo Tabori manbaca ama asaaska jaaliyadda reer Puntland gola ay ku dhan tahay bulshada reer Puntland oo dhan iyo Soomaali weynba ayna ku yihiin waxgal og dalkooda iyo dadkooda muddadii faraha badnayd ee sanadaha ahayd ee dalka kani aan u soo hayaanay wixii ka dambeeyana qayb facaal ah ka qaatay horumarinta iyo jiraalka dalkeena iyo dadkeena inagoo taa ku faanayno oo ku faraxsan inaan caaway aan soo dhaweyno madaxda Puntland oo ka timid oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland dawladda Puntland Hun Ilyas Cusmaan Lugator sidoo kale waad hurdaan baan u malaynayaa
inaan gabyi doonaan u malaynaya haddaanan dareemin xoogaa spirit iyo farxad sidoo kale waxaad ila soo dhoweysaan huun maxamed cabdulqaadir saalax doonyaale wasiirka agricultureka iyo irrigationka ama beeraha iyo bacriminta waxaad kaloo ila soo dhoweysaan oo shacabka igu taageertaan mar saddexaad huun maxamed xasan waa deputy ministerka qorshaynta iyo horumarka iyo isku xirka arrimaha Puntland iyo dunida inteeda kale isagana shacab igula soo dhaweeya sidoo kale marti sharafta qiimaha badan ee gobolada kale iyo magaalooyinka kale inoo ka yimid iyo haldoorkeena horay fadhiyo wajiyadooda quruxda badan arkaysaan ayagana mar afraad ila soo dhaweeya inta haddaan ka gudbo افتتاح إن آياتها القرآن كفرناه وخير ما يبدأ به إلهي كلمات كيساس وإن كد الأخرية شيخ إبراهيم إلهي أن كأنفعه آياتها القرآن كريم ككلن كأن يسرجنا الله كبركه أنت هذا كجدبو وحن شعلها إن إدين سو سرديو إن إدين سو هرمريو قضب برنامج كتحنيه ساعة anigoo dareemaya waqtiguna inuu kooban yahay isla markaana waqti fiican inaan siino madaxdeena si aan uga dhageysano risaalada ay noo wadaan iyo xogta ay noo wadaan sidaa darteed waxaan isku dayi doonaa dhinaceena inaan koobno aayadaha quraanka kariimka ayaynu ku bilownay waxaan ku xijin doonaa insha allahu furitaanka shirka oo uu inoo furi doono gudoomiyaha qabanqaabada kulankan ahna hogaamiyaha jaaliyadda tancaawa halkan fadhida maxamuud warsame soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلكم أجمعين وسلام يا ذاتك أهل الشرف هالكان كسوق بقلي مرت شرفتان سودوينتا مذهب بونتلاندي ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka Ilyas Usman Lugator iyo wasiirka beeraha iyo waraabinta mudane Maxamed Cabdulqaadir Saalax Doonyaale iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah Maxamed Xasan Ibrahim aad baan u soo dhaweynaynaa walaalaha iyo madaxda inuu yimid soo booqday gobolkan Feesar Yotland gaar ahaan magaalada Yetebori inuu ku soo booqday soo dhawaada ayaan leenahay waxaan filayaa runtii waxa aad u qodobeeyay oo qof iyo yaani maartay si dhiiran oo sacab ku jiro runtii u soo dhaweeyay kelmadiisuna ay muhiim ahayd kuna soo afjaran arrinka waa caalami marka waxaan kale oo aan aad ugu mahadcelinayaa walaalaha halkan soo xaadiray rag iyo dumarba runtii anigoo ku hadlaya guud ahaan jaaliyadda gobolkan aan joogno oo ka kooban Puntland iyo Khaatuma jaaliyadaas oo labada maamul ka kooban anigoo afkooda ku hadlaya guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka jirta Feesar Yotland gaar ahaan magaalada Yetebori anigoo afkooda ku hadlaya waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad soo dhawaada madaxdeena sharafta leh intaan caawa halkan joogta iyo in badan oo runtii ka dambaysa oo cududaar ku maqan maadaama la yiraahdo al-cudru cinda Allahi maqbuul bulshada wad garanaysan oo bini aadam waxyaabo tira badan ayaa iska jira marka inta tan caawa soo xaadirtay waxayna ramsi u yihiin ama bedel u yihiin boqol jeer jibaarkeed oo maqan ayaga ayaana ka turjumaya afkoodina waa ku hadlana dhamaantayo inta idin soo dhaweynaysa shirkeenan caawa marka waxa uu daaran yahay kuna saabsan yahay soo dhaweynta walaalaheen madaxdeena sharafta leh aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wax kale oo hadda runtii inaga ka bulsho ahaan aan malaynayo inay maaragtay jirayaan ma jiraan soo dhaweynta walaalaheen mooye wixii kale oo ay xambaarsan yihiin insha Allah taala mar dhow iyaga iyo mikrofoonada ayaan soo dhex bixi doonaa hadii la haydmo aad baan u maasantihiin salaamu alaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh gudoomiyaha sida meeshan lagu dhuftay carabka SSC Khaatumo walaalkay Saleeman Nadiif soo dhawow isagana saaxiib igula soo dhaweeyo maxaa dhacay soo dhaweynta walaalaha aynu soo dhaweynayaan man la qabna madaxda sharafta badan ee qiimaha badan ee noo timi
waxaan ku darsanayaa sida la sheegay anoo ku hadlaya afka SSC Khaatumo in aan si gaar ah ugu mahad celinno madaxda sharafta badan ee madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirada Puntland annagoo halkan ka jaaliyad ahaan u marinana mahad celin ballaadhan dowladda Puntland maamulkeeda madaxdeeda isimadeeda shacabkeeda iyo ehel sharafkeeda oo dhan baanu ka jaaliyad ahaan idinku soo dhaweynaynaa idinkuna salaamaynaa idinkunana qaybsanaynaa farxadda iyo imaanshaha aad noo timaadeen soo dhawaada aad baad u mahadsantihiin dadweynaha sharafta iyo qiimaha iyo qadarinta mudan xafladan ugu soo dhaweynaya madaxweynaha ku-xigeenka Puntland mudane Lugatoor wasiirka beeraha iyo wasiirka ku-xigeenka intaa ka bacdi waxaan leeyahay madaxweyne iyo wasiirayaalba ku soo dhawaada wadanka Sweden gaar ahaan magaalada Göteborg caasimadda labaad ee dalka Sweden waxaynu soo dhaweynaya garbihiinii iyo ummadii iyo dadkii aad xukunteen oo aad madaxda u ahaydeen oo garbihiina ahaa aad ku duuleyseen waa jaaliyadda Västergötland Puntland oo u heelan dalkeeda iyo dalkeeda inay wax u qabato waxna ka bedesho hadba wacyiga jirana ay la socoto aad baad u mahadsantihiin idinkuna sida sharafta iyo qiimaha iyo qadarinta leh aad noo soo booqateen nooguna soo talagasheen noogana soo wardoonteen waad ku mahadsantihiin intaa ka bacdi fariin baan idin farayaa haddaad dalkii ku noqotaan fariintaa ka bacdina waxaan rabaa feedbackeeda iyo mas-uuliyaddeeda iyo jawaabteedaba inaanu miidiyaasha iyo warbaahinta iyo saxaafadda iyo joornaalada aan ku aragno waa midda koowaade waa xagga nabadgelyada inaad nabadgelyada aad ku dadaashaan oo waxyaalaha yaryar ee Puntland ka dhacdhacaya laga sheegayo aad xasilisaan talabaadna waa inaad marjicii Puntland oo ahaa isimada iyo odayaasha dhaqanka aad dib taladoodii ugu noqotaan waxna ka qaadataan maadaama ay ahaayeen ulul amri soo bilaabay Puntland hanashadeedii iyo bilowgeedii iyo isku dubaradkeedii odayaalna inoo ahaa aynuna kusoo dhaqmi jirnay ducadooda iyo waxqabadkooda haddii ilaahay idinka ka dhigo aad baad u mahadsantihiin soo dhaweynta waxaan la qabaa odayaashii iyo waxgaradkii iga horreeyey waxaan rabaa inaan idhaahdo madaxweyne Ilyas Cusmaan wasiir Maxamed Cabdulqaadir wasiir Maxamed Xasan soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada meel in ka jecel yahay ku soo dhawaada dadkii aad mas'uuliyiinta u ahaydeen ku soo dhawaada halkan waxa joogta waxaan ka arkaa Soomaaliya oo dhan runtii sida muuqata dadka oo dhan Soomaaliya oo dhan baa diyaar u ah soo dhaweyntiina waxaan ka rabaa inaan magaranaysaa inaan soo dhaweeyo martida kale ee nooga timid meelaha kala duwan aad baa u mahadsantihiin idinkuna hal eray baan ku darayaa awal dhowr eray baan rabay inaan dhaho in la ogaalaadana waa codsanayaa halkan waxaa noo timid oo soo dhaweynta iskale madaxda Puntland halkaana waxaa ku dhegan saddex calan saddexda calan mid waa Soomaaliya oo aan ku wada khasbannahay waa kan hoos joognay midna waa kan la maamuusay caawa madaxdiisii noo timid kan kale saddexaad baan rabaa inaan tafsiir saaradadii ogolaataan oo ah inuu nooga duwan yahay calamada kale Jubbaland maana soo qaadan Galmudug maana soo qaadan maamul kale maana soo qaadan waxaan soo qaadanay calankii SSC Khaatumo waxaan u soo qaadanay ma aan wax sahlan sanad iyo barna waa sidanay waana sida doonaa ilaa meesha aan rabnay aan gaarno arrinka Khaatumo markaati waxaynu kugu filan halka aan caawa soo dhignay waxaan rabnaa marka inaad naga qaadaan fariinta ah inuu yahay
wax aanan marna ka gorgortami karin siyaasaddu waa howlo badan tahay waa dhib badan tahay ilaa ma garanaysaa waxa weeye dadka khaatumo hadda joogaahe rabitaankooda waxaan ahayn waa khad axmar iyagii weeye kuwa dimuqraadiyadda beenta sheegaya laakiin danahooda ku wata haddaba annagu maantay dowladahaas ay kambaniyadu afduubeen baa waxaan rabnaa sidaan macnaha adduunkan iyaga ay qabsadeen sidaan aan macnaha ula macaamil lahayn kambaniyaashaas maxaan ku badbaadi karraa oo la macaamili karraa weeye marka waxaan ku badbaadi karraa waxa la yidhahdo cooperative iskaashtooyin inaan annagu abuurro oo aan ku badbaadno maxaa yeelay maanta adduunku waxay maraysaa in ay tahay qofka quudkaaga haddaad soo saaran weydaa cuni lahayd go-aankaaga gacantaada kuma jiro marka ilaahay waana siiyey khayraad nagu filan ayaa barnaamijkaas iskaashtooyinka la yidhaahdo oo anigu fikirkiisa aan bilaabay waan hayo dad badanna hadda aan kala hadlayay marka barnaamijkaasaa dalka badbaadin kara gaar ahaan annaga puntland waxaan rabnaa barnaamijkaas inay dowladdu ay xoog saarto dhammaantiin waad ku mahadsantihiin sida milgada iyo maamuuska leh oo aada u soo dhoweyseen madaxdeen madaxweyne iyo wasiiro soo dhowaada annagu haddaanu nahay dadkan reer Gothenburg waxaan ka midaysannahay madaxda iyo haddii ilaahay kuu rooyahay isimada iyo wixii dhibaato ama waxqabadaho gudihii ka jira dad ka midaysan ama jaaliyad ka midaysan baanu nahay sidaad u doorateen markii aad tiraahdeen Sweden baan tegaynaa adinkoo weliba socodkiinu yahay caasimadda Stockholm warjaaliyadda ugu fiican oo aan la kulannaa maadaama Sweden aan hal jaaliyada inaan la kulannaa rabno oo aad tiraahdeen Gothenburg sidaad noo karaamayseen oo noo sharafteen allah inii karaameeyo dadka reer Göteborgna haddee sharaftaas iyo magacaas inay leeyihiin ha ogaadeen madaxdu Stockholm bay u socotay waxay halkaan ugu soo wareeyay jaaliyadan ma dhaafi karnaa la yiri Gothenburg joogta waxaa la rabaa sharaftaas iyo magacaas iyo karaamadaas inaanu kor u sii qaadno annagana waana la ka rabaa madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada ee la socda marti sharafta meesha fadhida mudanayaal iyo marwooyin waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib madaxweynaha iyo golaha wasiirada ee la socda waxaan leeyahay soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada kolley waxyaalo badan oo aad isleedihiin calooshiina ka guuxaysana naga filan maysaan oo ah siyaasiyiinta u daran oo ah xilla inama weydiisanayno maaragtay kursina inaguma haysano soo dhoweyntiina keliya ayaa anu nimid ku soo dhowaada gacan furan intaa kadib waxaan runtii leeyahay waa farxad bay noo tahay inaan la kulanno madaxda Puntland oo maanta caawa noogu timid Göteborg annaga oo matalayna jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Göteborg waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhowaada idinkaana matala runtii waxaan isleenahay waan ku faraxsanahay in aan ka soo qayb galno farxadiina waadna mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasiir maxamed cabdulqaadir dooyaale baas bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan jaaliyadda reer Göteborg gabdho iyo dhalinyaro odayaal waxgarad haween kulligiin aad baan idin salaamayaa salaan kadib waxaan idinka mahadcelinaynaa soo dhoweyntii diiraneyd oo saaka ka soo bilaabatay ilaa maantood qadab fiican aad u qurux badan nala siiyey iyo caawa oo si qurux badan loo soo agaasimay kulankan aynu inagu warrami doono aad baan iga mahadcelinaynaa waqtigoo nagu yarna waan ka cudur daaranaynaa marka waxaan u soo istaagay
madaxweynaha ayaa warbixin kooban idin siin doono oo ka jawaabi doono su'aalaha inaga guuxaya sidoo kale fariinta aan inii wadno labadaas madaxweynaha ayaa noo hadli doono marka asagaan ku soo dhaweynayaa mudane madaxweyne ku soo dhawow بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وزيرك بيرها محمد عبد القادر وزير كحيجينك وزارة قرشين محمد حسن قدوميها جالية بودلان ودن كي سويدن قدوميها خاتمو سويدن قدوميها شكلي جاليات كصوماليات مناسبة كسو قيب قلي جالية D5 معها halkan nagu soo dhaweysay runtiina meelo hore aan soo marayna waa si gaar ah idinku amaanaya Holland bay ahayd meeshii labaad waxaan D5 ka hooseeya nagu soo dhaweyn marka aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh runtii waa ka mahad celinayaa soo dhaweyntii qiimaha badnayd ee saaka airportka lagu sameeyay iyo tii maanta qadada fiican la ku siiyay iyo munaasabadan golaha la soo buuxiyay bulshada labeenteedii rag iyo dumar odayaal aqoon-yahan isimo garaad maxamed waa deegaankan waa ka tirsan yahay safar waa ahaa garaad abshir garaad maxamed iyo dhammaan ismada kale ee ugaaskina waa la sheegay wakiilka suldaanka markuu suldaanku maqan yahay waa kulli ismo badan baa idin jooga waa taarta waa ka mahad celinaa waxaan kale oo aad uga cuudaaranaynaa waxaad mudnaydeen waqti fiican aan idinla qaadano saakaanu idin barina waa idinka jarmaadaynaa marka waqtigaa weynaadna siiseen maanta waa iyo waqtigaan idinku yaraynaa waa ka cuudaaraynaa waxaan rabaa inaan marka hore idinka xog waramo Puntland waa dowlad Soomaaliyeed oo federaal ah oo state weyn oo Soomaaliya 3 meelood oo meel ah 26 sano jirsaday markuu Soomaaliya 8 sano sugayay oo Soomaali ay muuqan weyday madaxdii maalinta joogtay dhaqan iyo siyaasiyiin iyo aqoon-yahan ay garatay inaan Soomaaliya wali dhaweyn ee Soomaaliya waxay ku sugaan oo dowlad ahaan ku noolaadaan oo state ah oo Soomaaliya waxna wada leh waxna kala leh oo dowlad federaal yahdo oo asaaskeedu ugu horeeyay Puntland ku asaasteen 26 sano kadib oo 6 dowladood isbedeleen iyo Soomaaliya maanta meeshay marayso waxay laga maarmaan noqotay in Puntland cusub oo qorshayaal cusub leh oo siyaasad cusub leh oo difaac cusub leh la yimaado Puntland waad ogtihiin 26 sanadood dowladdan maanta joogta ay tahay dowladdii lixaad oo leena nasiib u yeelatay dowladdii koowaad mar labaad soo laabata oo xafiiska mar labaad ku soo laabato aan isleenahay way mudnayd in la soo celiyo ay sabab tahay shantii sano hore waxay qabatay waxyaabo waaweyn oo reer Puntland ay ku faani karaan oo ay ugu horeysay xornimadii gobolka Sool iyo deegaanka Khaatumo ay dowladdan ku suntaday oo ay ku xigtay doorashadii qof iyo cod oo himiladii 3 sanadood ee charterka Cabdullaahi Yuusuf Ilaa Janeel Raxma ka waraabiya lagu doortay in lagu gaadho inay barnaamijkaas iyo himiladaasna ay ka dhabaysay waxa kale oo horumar weyn laga sameeyay horumarka infrastructure-ka ugu horeysay degadii Garaacad oo ahayd mashruuci qarniga oo maalgelintiisa shacabka Puntland iyo dowladooda kaashanaya garwadeen ka tahay oo dhagixii ugu horeeyay ku riday madaxweyne Dr. Cabdullaahi Deni maantana dekad weyn oo function oo shaqeynaysa oo maraakiibta containersku ay imaanayaan iyo horumarkii kale laga sameeyay wadada ceel daahir Cergaabo infrastructure-ka wadada Boosaaso Garowe iyo dhammaan institutionskii dowladeeda kale horumarkii laga sameeyay haddii dowladda maanta joogta ay noqotay dowladdii lixaad ayna noqotay dowlad fursad u heshay inay termkii labaad soo noqoto iyadoo xogaalka ay haysiga Soomaaliya meeshay marayso iyo Soomaaliya inaysan dhaweyn Soomaaliya waxay ku maamulaa faal ay tamay afka lagama dhowro muhiim bay tahay in bulshada lala wadaago Soomaaliya maanta meeshay marayso dowladda cusub waxay garowsatay inaanu dhisno dowlad ka jawaabta horumarkii 26 sano soo qabsoomay
mid ka culus in la gaadho muddadan 5 sano ah isku tashiga koowaadna uu noqdo siyaasad Puntland leedahay horumar Puntland leedahay iyo in waqtiga ugu badan shaqada ugu badan la geliyo Puntland sidii ay u horumari lahayd shaqada labaadna la geliyo horumarka laga gaaray Khaatumo iyo deganaanshaha laga gaaray sidii nabadaas iyo deegaankana loo difaaci lahaa deganaanshihiisa siyaasadeed iyo qorshayaashiisa mustaqbalkana loogala shaqayn lahaa dadka deegaanku aragtidooda mustaqbal waxa ay ku dhiseen oo ah mas'uuliyadda labaad ee la saaran waxaan u maleynayaa in halkan Khaatumo laga taabtay oo aad waliba jaaliyadii Khaatumo madaxdeedina ay halka ku dhan tahay dawladda maanta joogta waa dawladdii shalay xoreysay Khaatumo waa dawladdii 6 February maalintii qaraarku soo baxay isla 6 February madaxweynuhu ku dhawaaqay in qorshaha iyo talada dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo golahaas ka soo baxday in lagu shaqeeyo siyaasadda lagu guuleysana garwadanka waxna aan kala harin ilaa hadda ay taagan tahayna mustambeed oo ah Khaatumo deganaanshaheeda iyo horumarkeeda waxaan kaloo rabaa inaan halka uga faa'iideysto waxaad arkaysaa shalay ismadii reer Khaatumo lagu soo dhaweynayay Garowe horeyna u soo maray bari sanaag iyo deegaanada karkaar intaba iyagoo raba inay u mahad celiyaan dadkii reer Puntland ee tolka ahaa ee dhiig iyo dheecaan taladooda iyo xoogooda ku xoreeyay deegaankaas oo ay u dhinayd Garowe iyo Mudug inay tagaan maadaama buuggii jaacadii la furayay oo uu halka kulankaasi hakaday haddana ay dib u bilaabeen shalay yimaadeen una sii gudbi doonaan Mudug waxaan rabaa anoo dowladda Puntland wakiil ka ah anigoo madaxda deegaanka wakiil ka ah inaan jaaliyadiinan uga mahad celiyo sida looga mahad celiyay shalay Garowe iyo deegaanadii la soo maray waxa ay qabteen oo ay la'aantiin deegaankaas sharafka ka yimi usan yimaadeen oo naf iyo dhaqaalaba u hurteen maxay tahay haddaba istaraatiijiyadda cusub iyo siyaasadda cusub ee Puntland lagu dhisaya markaan dhisnay dawlad tayo leh waxaanu muddo ku mashquulsanayn in retreat la sameeyo la qorsheeyo 5 sanadood qorshayaasha hortabinta leh ee siyaasadeed ee Puntland lagu horumarinayo laba buugo ka mid aanu sidnaa insha Allah way idinka tagi doonaa inaad basataan oo qof kasta reer Puntland uu balabada buug akhriyo maanta Puntland meeshay taagan tahay qorshayaasha mashaariicda Soomaaliya lagu caawiyo waxa ay ka hesho runtii Soomaaliya mashaariicda ay laga helo oo Puntland ay tahay meesha kaliya degan oo mashaariic laga qaban karo boqolkiiba 4% bay ka heshaa 4% bay ka heshaa inta kale waxay noqotay inay Puntland u ciqaabnaato horumarka ay samaysay iyo Soomaaliya waxay ay tartay dhaqaalahaas ay lahayd oo wax loo hakiyay ay tahay in 4% kaliya ay ka hesho in dhaqaalaha lagu bixiyo iyada lagu burburiyo shalay haday ka dhalatay markii shirki Boosaaso la rabay in lagu qabto qaahiro lala aaday oo limintii halka ay dawladdu ku dhismay Soomaaliya marka ay ku midaysnayd la fashiliyay inay dhisanto maanta oo ay 34 sanadood joogto Soomaaliya 3 shay kaliya heshiis ku ahayd waxay heshiis ku ahayd federal waxay heshiis ku ahayd 4.5 waxay heshiis ku ahayd dastuurkii ka soo bilaabmay Embagati ee Garowe 1 iyo Garowe 2 iyo Muqdisho lagu dhameystiray oo inta badan dhameystiraa laakiin ay dhinayd waxyaabo aasaasi ah kooban oo ahayd in laga heshiiyo oo khayraadka qaybsigiisa iyo waxyaabo kale ah waxaad ogtiin dastuurkaasi inuu meesha ka baxay oo madaxweyne Xasan Sheekh iyo dawladdiisu ay meesha ka saartay haddii Soomaaliya wixii nagala dhaxeeyay ee dastuur ahaa meesha laga saaray waxaanu hakinay wada shaqayntii iyo matalaadii iyo golayaashii Soomaaliya taladeeda la qaybsay ay sabab tahay Soomaaliya waxa lagu wadaa god aakhiro aan Soomaaliya aysan ka soo noqon doonin si ay Puntland aysan marxaati uga noqon aragtideeduna ay u muuqato inay wax halka ka socda ay diidan tahay waxa kale oo meesha la wadaa in laga saaro qodobkii ugu weynaa ee Soomaaliya heshiis ku ahayd kaliya ahaa ee Embagati laga soo heshiiyaha federal waxa loogu talagalay diasporada iyo dawladda Puntland inay isku xidho waa hay'ad dawli ah oo institution ah waxay hoos tagtaa wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga iyo madaxtooyada waxaan rabnaa iyada laftigeeda aan active gareyno ay noqoto mid shaqeysa oo doorkeedii shaqo ka soo baxda Puntland haday dadkeedu ugu waxtarsanaa guuleystay ee diasporada ahaa ay dibadda joogaan wax badanna dalkii ka taraan oo ama maalgashi shakhsi ah ama dad ehladii wax la taro ama institutionka dawliga dad badan oo waxtar leh ku soo noqday in la abaabulo oo laga wada shaqeeyo dalkii sidii loo wada horumarin lahaa dalkii dimuqraasiyaysan buu aaday waa ogtiin golayaashii deegaanka 36 degmo 3 degmo harsanaa intii hore loo qabtay 8 xisbi siyaasadeed baa jira 3 haddaan dhamaystiray taa macnaheedu Puntland dhammaan degmooyinka golayaal deegaan oo la doortay baa jooga
oo fursad in loo siiyo u baahan inay horumar helaan waliba inta badan waxaa fursad u helay dadkeenu generation dhalinyaro weeye dhalinyaradii baa u heshay wuxuu dowladnimadeennii raray heer la gadi karo hadday Soomaaliya meelo ku calaamadsan yihiin in ammaan darro ka jirto in kooxo nabadiidii joogaan in dowladnimadu jilicsan tahay laakiin Puntland ay joogto meel ammaana demonstration ka hirgalay golayaal la deegaan oo la doortay iyo madax la doortay ay leeyirkii hoose ay fadhiyaan Puntland waxaan isleenahay xilligii la gadi lahaa bay joogtaa yaa Puntland gadaya marka Puntland waxaa gadaya dowladdeeda siyaasadeeda u xilsaaran iyo diasporadeeda waxtarka ah haddii xafiis kasta iyo waddan kastoo siyaasadeed ay reer Puntland cudwi weyn ka yihiin waxaa looga faa'iideysan karaa marka inay safiir noqdaan ama lobbies noqdaan deegaankoodii u adeega siyaasiyan oo gala mashaariic u raadiya maalgashi u raadiya annagu hadda ma rabno inaan koob hoorsanno oo baryatag ma nihin Puntland waxay leedahay 1670 kilomitir oo bada waliba haddaad daraasad ahaan dib ugu noqotaan badda ugu qaniisani marka garaac la dhaafay baa laga baxaya ee kalluunka marka la xiis la dhaafana waa laga baxaya way yaraanaysaa macnuhu laga baxayo badda ugu qaniisani waa inta Puntland ay haysato soo politicalkii labadii badood ee ganacsiga adduunku marayay bay haysataa khayraadkii kale nooc walba ka buuxa xoolaha ugu badan ee khaliijka aadaa meesha uu ka baxaa waa iyaga beerihi hadda wasiirkii beeraha nala socda beeruhu aad bay u horumarsan yihiin walaalkii ku talinayay iskaashatooyin la sameeyo horaa Puntland loo sameeyay iskaashatooyinka kalluunka oo dhammaan xeebaheena ka dhisan beeraleydiina hadda gacanta lagu hayaa la dhisaa qayb baa dhisay wixii kale hadda wasaaraddu ay ku mashquulsan tahay si loo caawin karo si deyma loo siin karo waad ogtihiin hadda dunidu dhaqaale badan bay ku bixiyaan reer Yurub iyo Mareykankuba in institutionskaas maalgashi la siiyo aan interest lahayn oo la soo celin karo marka si taa loo horumarin karo beeraha laftigooda in la horumariyo waa istaraatiijiyada qorshaysan oo shaqo fiican laga hayo in kalluumaysiga iyo xeebaha la horumariyana dowladdu siyaasad cad bay ka leedahay hadda bishii dhaweyd waxaanu caasimadda shir ugu qabanay 15 degmo xeebeed oo laga soo bilaabo Garaacad ilaa Laas Qoray oo muhiimadu ahayd in maamulkii dowladeed la hagaajiyo waxaanu u qabanay maayaradii iyo golayaashii la doortay booliskii madaxda ka ahaa maxkamadihii iyo institutionskii dawliga ahaa muhiimka si loo suurtageliyo in maamulka dawliga uu xoog badan ku yeesho xeebaheennii in dadkeenni loo celiyo xeebaha si loo horumarin karo kalluumaysiga waxaa kaloo aanu goosanay mashruuc jirbeeshiga ee hore u jiri jiray oo hadda soo laabanaya degmooyinka xeebaha inaanu sanadka siino oo lagu horumariyo iyaga kuwooda ugu dakhli soo saarka fiican leh Puntland iyadan ku amaanayna dawladii kala duwanaa cid waliba ay wax weyn qabatay way horumarka maanta ma jooga meeshu jooga lama soo gaareen laakiin waxaan isleenahay milestone xoog leh baa maanta la samayn karaa haddii dawlad siyaasad cad leh bulsho u diyaarsan dawladnimo dimuqraasiyad iyo deganaansho la helo diasporadeeda fursad ahaan laga faa'iideysto waa ognahay reer Sweden waa jaaliyad weyn oo waxtara walibana jaaliyadda magaaladan deganay waxyaabahan ugu soo horumaray waxay ka mid ahaa waa jaaliyadii ugu horeysay qurbaha timaada oo waliba dad waaweyn oo ama aqoon leh ama siyaasiyiin ama aqoon leh waxtar ay yimaadaan taas waxay keentay in bulshada intii kalena ee ku soo biirtana ay noqoto bulsho ay ka soo horeeyeen gundhig xoog leh oo weyni marka waxaan rabnaa inaad idinku tusaale u noqotaan jaaliyaadka kale oo midnimo xoog leh idinka muuqatay maantana hoos baynu u sheekaysanay jaaliyadiinana waxaan rabnaa in si xoog leh loola shaqeeyo maxaan labaad oo jaaliyaadka ka rabnaa waxaan rabnaa inaan sameeyno sanduuqa horumarinta Puntland hore Puntland uma lahayn sanduuqa waxaan rabnaa dawladda Puntland ay lacag ku rido diasporaduna inay lacag ku rido haddii qof kastoo diaspora ahi waa Eritreanka waa ogtii maantay ka khatar badan tahay waxaa la isku haystaa Soomaaliya say u ekaan lahayd Xasan Sheikh iyo tiimkiisa xamar jooga waa tiimkii ugu khatarta badnaa ee Soomaaliya siyaasadeeda soo gala waxaana walwal ka qabnaa in dawladnimo lagu gaadho way gacantooda ku burburto koonfurtii Soomaaliya xooggeeda shabaab haysto xadhigii yaraa ee Soomaaliya isku ahiyay dastuurka haddii la laalo maxaa dastuur u noqon doona maxay ku heshiin doontaa xagee dalku aadi doonaa taa macnaheedu reer Puntland waxaan rabnaa siyaasadda cad Puntland ma geeyo
sida Soomaaliya inay tahay waa qono banaanka u baxday Israel bay lahayd daraawish bay lahayd hiday u lahayd Soomaali dawladnimadeeda inay dhisto wali kama inaan quusan shalay bay ahayd oo aynu ka tamar yar rahay inaynu xogaaga ciidankeenu haysanay iyo xogaaga dhaqaalaheenu haysanay Cabdullaahi Yuusuf fil Soomaaliya geeyo oo maxaa siyaadabadii madaxweynuhu horeeyay Soomaaliyeed gala noqdo xilliga cadam musana wax alla wixii dhaqaale soo galay lagu biilayay Muqdisho iyo Jowhar iyo Baydhabo abaalku wuxuu noqday inta qalala sababla ka jira inuu xamar ka yimaado Puntland waa degan tahay waa horumarsan tahay waxa ugu weyn aan xambaarsannahay waa saddex afariimood midnimo reer Puntland midnimo Puntland iyo reer Khaatumo waa Puntland waa Khaatumo annaga aragtidayadii ahayd ninbaa eray yar taabtay wuxuu yiri arintaas khadcas bay noo tahay annaga wixii dadkaas goostaan ba khadcas noo ah anigii madaxweyne Cabdullaahi Dani maalintii koowaadna waa qaadanay laakiin waxaan rabnaa dagaalkii Muuse wali ma dhamaan wixii aad tiri jirteen in la taro waa jilicsan tahay wali fariinta waa idinkaga tageynaa sidii aad ugu midaysan arinta qadiyada waa wada leenahay in laga wada shaqeeyo runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa tiimkii aadka u soo shaqeeyay asbuucan oo hawsha adag isku soo dubariday gabdho iyo wiilal balaha aad baan runtii aan ugu mahadcelinayaa waana u ducaynaynaa barakallahu fiikum ilaahayadan barakeeya dunya aakhiraba inta ka soo qayb gashay oo ilaa saacadaana runtii waqtigooda iyo ihtimaamkoodana soo siisay marti sharaf meelo kale ka yimid iyo guurtida timid iyo gabdhaha yimid iyo haddii la kuudmahay khiyaarta timid aad bay u mahadsan yihiin waxaan filayaa soo dhoweyntii madaxda runtii in badan baa laga soo hadlay soo dhowaada oo mar kale soo dhowaada oo walaalayaal soo dhowaada insha allahu tacaala aadna waa u mahadsan tihiin shurkuna waa inoo